kusoo dhawaada channelkeena SaaS Software oo alaabad uga barateen casharada taxanaha oo ICT-ga. Fadlan subscribe saar si aad ula socoto casharada taxanaha ee aan soo gelino mar walba. Insha Allah ta'ala waxaan filayaa inaad la socoto casharada taxanaha ee channelka SaaS Software ama booqo website-kiisa www.saassoftware.weebly.com oo isagana ka heli doonto casharada aad channelkan kala socoto iyo waliba casharo kale oo saayida. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulanti wacan daawadayaasha nagu xidhnaa ee casharada taxanaha ee ka socda channelka la yiraahdo SaaS Software ku xidhnaa aad iyo aad ayaan idin salaamayaa. saaka oo khamiisa oo ku beegan 11 October 2018 aad iyo aad ayaan idin salaamayaa dhammaantiinba meel kasta joogtaan. maanta waxaan halkan idinka soo tabin doonaa haddii Allah awood leh idmo sidii aad computerka ku activate gareyn lahayd haddii alla ka dhigo adigoo aan wax software isticmaalaynin kaliya ta lagaaga baahan yahay 3 kood oo yar insha Allah on YouTube-ka ama casharka hoostiisa idinku soo baasti gareyn doono haddii alla ka dhigo idinkuna aad ka koobi garaysan doontaan ardayda iyo dadka u baahanba haddaad arday tahay iyo haddaad qof kale u baahanba tahay sidii aad halkaa uga koobiyeysan lahayd ayaa adiguna lagaaga baahan yahay koodkani waa 3 kood oo yar aan saa u weyneyn qof walibana uu fahmi karayo. casharkuna insha Allah wuxuu noqon doonaa cashar aad u gaaban laakiin muhiimada uu ku fadhiyaa dadka wax fara badan u leedahay oo dad fara badan ayaan ogahay oo la tacadidan ama dhibaato ay ka haysato sidii uu activate gareyn lahaa in badanna ku hawlan sidii uu soo heli lahaa activate-ki software-ka lagu activate gareyn jiray marka Windows-ka lagu shubo computer-ka oo asxaabtiisa kala weydiinaya. haddaba asxaabay maanta waxaan idin hayaa insha Allah 3 kood aad kaga maarmi karto software-ka aad raadinayso aniguna aan kaga maarmay oo computer-ka meel yar igu yaalaan kana soo baasti karaysto intaan ka soo koobi garaysto kadibna markaan Windows ku shubto ku baasti garayo isla markaana markiiba la activate garayo. activate-ku haddaan hore u yara taabano activate-ku muxuu yahay haddaan activate gareyn computer-kayga wax fara badan ayuu ka qarinayaa computer-ka amaanad awood u lahayn haddaan activate gareyn qabato. tusaale ahaan waxaa ka mid ah daawadayaal hadda istaado shaashada ka bedel oo wax kale soo dhigo halkan waxyaabo computer-ka hore u lahaa ku bedelo waad aragtaa iminka waa inactive ma shaqeynaya markaa kaliya ayaan ku khasbanay inaan ku isticmaalo sababta uu u diiday inaad bedelato background-kii computer-kaagana wax kale ma aha waxa weeye halkan wuu kugu sheegay waxa kale unit waxaad u baahan tahay to activate Windows inaad activate gareyso computer-kaaga before you can personalize your PC ka hor intaanad awoodin inaad computer-kaagan aad ka bedesho wax gaarka ku ah. marka asxaabay insha Allah 3 kood waxa weeye waa 3 kood yar 3 kood yar ayaa wax walba inaga anfacaya ma waa 3 sare ee aan active koodka ku qoray asxaabay ayaa inaga anfacaya haddii alla ka dhigo. marka si aad computer-ka markuu activate u baahan yahay marmar halka ayuu ku soo qoraa intaas ayuu ku soo qoraa isagoo qoraal ahaana markaad furto halkaas uu iska yaalaya ilaa intaad ka activate gareynayso marmarna baanu halkan halka yar keenin oo aad u baahan tahay laakiin uu sida kaaga qarnay markaas taado wax ka bedelo oo kale dhowr meelood oo kale aynaan hadeer ka wada gaarsiin karayno way jiraan oo ka diiday activate la'aantaas. marka waxaan taginaa si aynu activate-kii meeshii activate-ka u tagno halkaasaan tagayaa halkaas anigu waa Windows 10 baan isticmaalayaa setting-taan tagayaa kadibna waxaan ka sii dooranayaa update and security ayaan ka sii dooranayaa kadibna waxaan ka sii dooranayaa activation ayaan ka sii dooranayaa. halkan qoraalka uu kugu sheegay waxa weeye macnaha qoraalkan uu ku sheegay waxa weeye ma activate gareysna Windows-kani
Windowskani ma activate garaysna ayuu ku leeyahay sidaad aragtaba. marka insha Allah waxa loo baahan yahay hadii la ka dhigo insha Allah waxa nooga baahan yahay insha Allah. marka sidaad aragto halka wax ku sheegaya inaanu update garaysnay waxaan leeyahay activate garaysnay Windowskaagani. haddaba asxaabay halkaas waad ka tagi kartaa, aad ka eegi kartaa mar hadduu halkan ku soo qori waayo waxaad tagaysaa halka kadibna setting ayaad ka tagaysaa. haddii kalena halkan search inta ayaad ku baaraysaa waxaad leedahay setting waad ku qoraysaa. wuxuu ku soo qabanayaa Windows update kaas ayaad ka sii dooranay. kadib markaad ka sii doorato maxaad tagaysaa activation bay tagaysaa. kadib halkaas ayaad ku arkaysaa insha Allah. marka haddaba saddexdan code ee yaryar ayaynu ku isticmaali doonaa haddii Allah ka dhigo. Allah inoo fududeeyo insha Allah ta'ala. saddexda code ee yaryar ayaynu ku dhex isticmaali doonaa daaqada madow ee loo yaqaan CMD. halkan baan ku baarayaa halkan waxaan ku qorayaa CMD ayaan ku qorayaa. kadibna waxaan leeyahay right click markaan dhaw waxaan odhanayaa run administer ayaan odhanayaa. run administer iyo markaas ka dhufato way kala duwan yihiin. run administer waxa weeye waxaad awood leedahay ku soo ka awood leedahay waxyaabaha qaar baanay ama ayna yeelin CMD haddaanad run administer odhan. halkan markay soo saarto waxaan soo qaadanaynaa oo soo koobiyeysanayna koorka ugu horeeya ayaan soo koobiyeysanayna haddii Allah awood leeyno. kadibna waxaan leeyahay control iyo C oo koobiya. haddii kalena koobida caadiga ayaad isticmaali kartaa. kadibna waxaad leedahay paste baad leedahay oo control iyo V ah. kadibna waxaan leedahay enter ayaan leeyahay. intermediate ka labaad ayaan soo qaadayaa. halkan saad aragtay waad ku guuleysatay bilays successful koorka waad ku guuleysatay ayuu leeyahay. waxaan soo qaadayaa koorka labaad asxaabay. kadib waxaan sameynayaa yaanu iga wada gaanayn waxba mid baad u dooranaysaa mid ayaad isticmaalaysaa ayaad isticmaalay. control iyo C baan isagana leeyahay. kadib maxaan leeyahay CMD ayaan tagayaa. CMD markaan tago control iyo V oo ah paste isagana waa ku dhuftay sidii isagana ii sheegay kaana waa ku guuleystay buu ku leeyahay. waxaan leeyahay kana iska dhaaf. ka saddexaad ayaan asxaabi tagayaa isla markaana wuxuu soo saarayaa inaan ku guuleystay activationkii ayuu soo saarayaa. isagana control iyo C oo copy ah ayaan sameynayaa. waxaan tagaynaa daaqadeennii aynu tagi jirnay oo CMD labada koodhe horena ku baasti karaynay. kadib waxaan leeyahay control iyo V ayaan leeyahay. kadibna enter ayaan leeyahay. iminka sidoo halkan noo sheegayo waxa weeye uu activate garaysmay computerku. iminka tusaale ahaan haddaynu tagno meeshii aynu ka eegi jirnay waynu arki karnaa in uu activate garaysan yahay. wuu soo qorayaa inuu activate garaysan yahay. iminka saad aragtaanba asxaabay halkan waxaad ku aragtaan activation Windows is activated waa la activate gareeyay using isticmaal ku leeyahay your organization ururadaada ama meelaha tagisay. asxaabay haddoo iminka waxaanba way iska soo laabaynaa dhammaantood way iska soo laabaynaa. haddaad aragtaan asxaabay aan islaano ka bedelay iminka backgroundkii idiguma haysato to konton jeer baan bedeli karaa kuwalaale kaan dooran ka dhigan karaa. kadibna waxaan leeyahay dadna halkan baan leeyahay asxaabay iminka sida idiin muuqata saas ayuu ku activate garaysan yahay computerkaaga iyo meelaha kale ee ka hor iman doona activate u baahanba sidaas ayay kugu activate garaysmeen. casharka yar ee faa'iidada fara badan leh ayaynu caawa maanta kusoo koobaynaa oo khamiis ah haddii Allah awooda leedno. kulley wiigiiba hal cashar iyo laba cashar intaan ka gaarsiin karo ayaan ka gaarsiiyaa insha Allah. maanta casharka yar ayaan ku soo talagalay. mid kalena insha Allah haddaan ka gaarsiin karo ilaa jimcaha berri jimcaha
waan ka gaarsiin doonaa haddii Allah awoodo idno. idinkana wax la idinka baahan yahay kulley group aan u sameynay oo channel ku leeyahay casharadiisa lagu soo bandhigo. groupka waxa loo baahan yahay in linkigiisa dadka iyo asxaabtaada iyo groupada kaleba aad ku share garayso si ay asxaabta ugu soo biirto groupka halkana casharada loogala socdo oo channelka laga barto. waxa kale oo looga baahan yahay inaad share iyo like taad insha Allah nagu saacidaan idinkuna ayaa la idinka baahan yahay. waxaana casharkeedii la socodsiinayay walaalkiin Casiir Aadan Salaamaan. dhammaantiin akhyaartayda adduunka daafiisa kala jooga aad iyo aad ayaan idin salaamayaa. wixii tala ah ee aad nagu soo birin kartaana aad iyo aad ayaan ugu baahanahay oo idinka mahadcelinaynaa. saddexdan koodna haddii Allah idmo waxaan jecelahay inaan casharka hoostiisa idinku baasti kareeyo idinkuna sidiisa uga qaadataan meel la dhigataan waqtiga doontaan aad Windowska aad ka bedeshaan computerkaba waa khasab in idin weydiinayo aad hadhow isticmaashaan haddii Allah awoodo leedno. dhammaantiinba aad iyo aad ayaan idin salaamayaa kharta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.